السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قارت شرفت لسود هذا بيج كنا عمر شعب كرك سود هذا فلانقين كلنك وين إلى سوقي بري معانك السبدية سديت ساعة بردورنا مسوق لي دورة وبحياة لبضة كوح سوتمتون ما يونايتد يعني أسلف فلانقين دورنا على اللي يكون كان لبضة كوح حضبه محاد داوعي وما كان كوح ما يونايتد عيارتي ذا وشحذ وكسوق لي دورنا مع التنهاج سيدو كانوا على اللي مع التنهاج maadaama saddexdiisii Premier League saddexda kulan ee ugu horeysay sanadkan laba kulan laga badiyay hal kulanna uu bareejo oo hal gool iyo eber oo naf lahayn uu ku badiyay waxa la leeyahay hadii kulankan Southampton ama bareejo uu galo ama ba laga badiyay mustaqbalkiisa waxa waaye mugdi zaid weyn ayaa gali doona sida ka warqabtaan macna Tanhaag waxa waa ciyaartay badan ayaa wax ugu maqan yihiin dhaawac sida Lucas Shaw, Mason Mount iyo Højlund sidoo kale waxa la leeyahay Manuel Ugarte ma kusoo bilaabi doona ciyaarta mise keydka ayuu gelin doonaa waxa la leeyahay hadartan Manuel Ugarte inuu xanuunsan yahay markii uu soo dheelay kulamadii friendly list ee xulkiisa inuu xanuun yar oo qandha inay hayso la sheegay marka xanuun ku dheeli karo ay noqon doontaa oo kusoo bilaabi doona mise uu keyd ayuu gelin doonaa sidoo kale waxaan la fiirin doonaa shaxda uu kusoo gali doona maalinta Tanhaag Maguire iyo Casemiro boss ma keenay doonaan isbuucan line up-ka kooxda Man United sida la qiyaasay sida aniga qiyaasayo shaxda United macallinka uu soo gali doono waxa waaye Onana ciniida ma aha in uu sida aniga u sheegay oo ka dhigi doono laakiin sida aniga qiyaasayo waxa waaye Burtier Onana ayuu noqonayaa waa lagu ogyahay difaacida Dalot left back right back Mazraoui dhaxda labada center back waxay noqon doonaan Delight iyo Martinez Badker sidoo kale Casemiro inuu kusoo bilaabi doono ayay u baahan tahay iyo Manuel Ugarte uu isla soo safri doono oo tookadan juniorka yarka Mayno keed gelin doono Bruno Fernandes waa line up mar walba garbaha wuxuu ka dhigan doonaa Rashford iyo ama Diallo oo kulankiisa u dambeeyay kooxda gool u dhaliyay asagoo waliba tacsi u taalo hooyadiis dhimata ayuu gool dhaliyay marka ninkan asigana line up ku jira afka hore wuxuu kusoo bilaabi doonaa sida aqyaasayo Zirkzee waa laga yaabaa shaxalsa u sheegay inay noqoto waan laga yaabaa inay iska duwan ay noqoto ninkan basada xiran lama garan karo wuxuu macnaha uu sameeyay markii dadka ay bar u jeestaan asiga qoraxsan aada marka laakiin waxa la leeyahay kooxda Man United ninkan hadda waa inay ka sii baaraan degdeg bilowday waxa la leeyahay hadii Tanhaag macnaha uu xaalka ku sii xumaado United waxay bilowday maamulkeedu waxay bilaabeen macallimiin kale inay la sii shiraan la sii hadlaan isku dayaan inay heshiis hordhac la gaaraan sida Zidane oo kale عليه اسكو دين انه هرداي شي هرداع لا غيران لكن هو كديده عليه اللغه الانجليزيه ayaa culeys ku ah uu fahmaa laakiin ku hadalkeeda ayaa dib macnaha kala kulma marka luqada barashadeeda ayuu ku jiraa oo hadda macnaha wuxuu leeyahay waqti xaadirka diyaar u mii Premier League inaan ka noqdo tababare asagoo fahmin luqada ingiriiska ama macnaha ciyaartoydiisa hadda u gudbin karin sida wax u rabo ugu sheegi karin luqada sidoo kale kulanka wuxuu ka dhici doonaa guriga Southampton aniga sabdiga sidee saac iyo bardoornimo xilliga geeska Afrika ayuu soo gali doonaa waa kulan xaqiijin doono dhanka oo mustaqbalka Tanhaag inuu mugdi galo iyo ka soo kabto sida la og yahay afarta kulan ugu soo Premier League ugu soo horeyso Tanhaag wuxuu haystaa jaanis mustaqbalkiisa kooxda uu ku xajisan karo oo afar kulan oo yar Southampton waxa Serie B ay ka imaatay ogtii soddon kulan ee la soo dhaafay kooxda Man United koox Serie B kama badan soddon kulan ee kooxaha Serie B ka imaaday United dhish hal koox kama badan labada kun iyo saddexdii koox Serie B ka imaaday United ka baas ugu dambeysay ma fahmi marka Tanhaag scorekas ma jimin doona masa waxa Southampton garaaci doona waa la arki doona sidoo kale waxa la leeyahay kulankan maadaama ay sheeg ciyaartoydan Man United sida Rashford oo kale saddex kulan oo beelay saddex kulan shootna maridin goolna ma dhalin ma wuxuu ka bedeli doonaa statistics faash oo u yaalo ma sidiisu ku socon doonaa oo Tanhaag asigana oo la kar la ninkan shootna ridila goolna ku dhalaa kayd isgili la kar la ma soo safi doonaa waa isla arki doonaa marka adigu waxay ila tahay shaxda United wuxuu soo gali doonaa macallin Tanhaag mustaqbalkiisa wuxuu leeyahay comment ka guul wadaaga maalinka ciyaartaas ee dhici doonta haduu ilaa yiraahdo sidoo kale waxaan isku dayi doonaa inaan live ciyaarta ka soo tiwino adikana waxaan isku daydaan inaan taageertaan page YouTube page-keena oo adikada aan ku falanqeyn doono dhammaan kulamada kooxda Man United oo maadaama kulanka uu yahay kulan YouTube-kan channel-kan uu yahay loo aan ugu talagalnay taageerayaasha kooxda Man United in fikradooda lagu soo gudbiyo
in wararka kooxda lagu soo gudbiyo waxyaabahaas dhan lagu soo gudbiyo marka naga hilmaamina taageeradiina waa noo muhiim pageka waa youtube waa yaryahay waa aragteen subscribe-kiisa waa yaryahay taageeradiina muhiim noo ah waxaana waaye like-ta share-ta iyo commentiga iyo subscribe-ta adinkaa laydinka rabaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi